inaan baradiintaada su'aalaheeda ku weydiino adiga waayahay soo dhawo barakallahu fiik haye su'aasha ugu horeysa waxaad noo sheegi doontaa gabadh aabaheed walaalkeed ninkeeda iyo wiilkeeda ay nabi yihiin gabadh aabaheed walaalkeed ninkeeda iyo wiilkeeduba nabi yihiin sax horta gabadhaas waxa lagu sheegay inay tahay gabadhii uu qabay nabi ayub alayhi salaam magaceeda waxa la dhihi jiray liya ama rahma ama labada magacba culimada taariikhyada way sheegaan marka liya waxa la sheegayaa in ay ahayd gabadh uu dhalay nabi yaqub alayhi salaam abaheed wuxuu ahaa nabi ninkeeduna wuxuu ahaa marka nabi ayub wasna waa nabi walaalkeedna wuxuu ahaa nabi yusuf alayhi salaam wiilka ay dhashayna wuxuu ahaa nabi dulkifli alayhi salaam oo isaguna nabi ayub ahaa marka waxay noqonaysaa gabadha uu nabi ayub oo qabay alayhi salaam gabadha aabaheed iyo walaalkeed iyo ninkeeda iyo wiilkeeduba nabi yihiin wallahu a'lam ilaahay waana xaqoob insha Allah su'aasha labaad waxa weeye laba nabi oo isu sodog ah laba nabi oo isu sodog waxa nabi Muuse iyo nabi Shu'aib alayhi salaam markii uu nabi Muuse quraanka Ilaahay ku sheegay inuu laba gabdhood uu caawiyay oo u waraabiyay waa kii marka labadii gabdhood aabaheed u tagay marka Ilaahay oo abuuna sheekhu kabiir aabahayo waa oday weyn marka odaygii weynaa markuu u tagay waa ka odaygii weynaa uu ku yiri inni uriidu an unkihaka ihda ibnatay haatayn waxa rabaa inaan ku guuriyo labada gabdhood mid kamida ninka sheekha ah ama odayga weyn culimada mufassiriintu waxay qabaan inuu yahay nabi Shu'aib alayhi salaam marka nabi Shu'aib wuxuu sodog u noqonayaa nabi Muuse alayhi salaam haye su'aasha saddexaad waxay tahay laba nabi oo ilma adeer ah laba nabi oo ilma adeer waxa weeyaan waa nabi Lut alayhi salaam iyo nabi Ismaaciil iyo nabi Isxaaq nabi Isxaaq iyo nabi Ismaaciil walaalay ahaayeen nabi Lutna in adeerkood buu ahaa oo nabi Ibrahim ayaa Ismaaciil iyo Isxaaq dhalay sida caadiga la yaqaan nabi Lutna wuxuu ahaa adeer buu ahaa oo wax la dhihi jiray Lut ibn Haran alayhi salaam nabi Lut nabi Ibrahim ba adeer u ahaa marka Ibrahim caruurta uu dhalay iyo Lut maxay soo noqonayaan ilma adeer wallahu a'lam صح su'aasha shanaad waxa weeye laba nabi oo habar wadaag ah laba nabi oo habar wadaaga sida xadiis saxiix ah tilmaamayso waxa weeyaan xadiiska Bukhari ku yaala waa nabi Ciise iyo nabi Yaxya habar wadaag bay ahaayeen labadooda hooyo walaalaha Maryama bint Imran iyo Ishciya bint Imran labada gabdhoodba waxa dhalay Imran ninkii wanaagsan ee suurad kamida quraanka Ilaahay loogu magac daray suuratu Al Imran marka labada nabi Yaxya iyo Ciise habar wadaag bay ahaayeen wallahu a'lam haye su'aasha lixaad waxa weeye laba nabi oo walaala ah laba nabi oo walaala ah waxa weeye waxa kamid aha nabi Muuse alayhi salaam iyo walaalkii oo ah nabi Harun alayhi salaam labada nabi waxa weeyaan waa walaalo waxa kale oo walaala ahaa nabi Yaqub iyo nabi Ciise nabi Yaqub waxa dhalay nabi Isxaaq alayhi salaam marka nabi Isxaaq wuxuu dhalay laba wiil oo midna waxa dhihi jiray Yaqub midna Ciise baa la dhihi jiray sida ay wararka Israa'iiliyaadku sheegayaan labaduba mataanay ahaayeen walaalo mataana ah bay ahaayeen nabi Yaqub inuu nabi yahay islaamka lagu sheegay walaalkii oo mataan ahaa Ciise la dhihi jiray inuu nabi yahayna kutubta yahuuda lagu sheegay marka kuwo si rasmi quraanku u sheegay diintu sheegtay nabi Muuse nabi Harun hadii wararka Israa'iiliyaadka ah la sheegana waa nabi Yaqub iyo nabi Ciise wallahu a'lam صح haye su'aasha toddobaad waxa weeye laba nabi oo isu adeer ah laba nabi isu adeer waxa weeye nabi Ibrahim iyo nabi Lut nabi soo sheegnay markay maadeerka u rumaynay marka nabi Ibrahim ba wuxuu yahay adeer ayuu yahay nabi Lut alayhi salaam صح su'aasha sideedaad waxa weeye laba nabi oo isu awow ah awow hooyo mise awow aabo awow hooyo waxa noqon kara nabi Yaqub oo nabi Yaqub markay inantiisa oo liya la dhahdo uu qabay nabi Ayub maxay dhashay dulkifli soo nabi dulkifli alayhi salaam marka nabi dulkifli awowgi xaq hooyo muxuu noqonayaa nabi Yaqub
waxa kale oo nebi ciise awowgiisa hooyo waa Cimraan nebi Yaxye awowgiisa hooyo waa Cimraanna quraanka lagu sheegay inuu ama nin wanaagsan ahaa ama inuu nebi ahaa إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين marka ilaahay uu ka warramay afar qoys oo ilaahay subhanahu wa ta'ala adduunka oo dhan uu ka doortay nabi aadam iyo nabi nuux iyo nabi ibraahim iyo aal Cimraan marka wax weeyaan waa Maryama aabaheed waa Maryama ibnata Cimraan Maryamadii ina Cimraan ahayd Maryamada ina Cimraan aabaheed marka nabi buu ahaa mise nin saalix oo wanaagsan buu ahaa culimadu waxay aad u sheegaan oo aad uga warramaan inuu ahaa nin wanaagsan oo saalixa oo imaam ahaa kuwa kale oo nabi ku tilmaamana way jiraan waxa kale oo de maaragtay inuu qof shakhsi aad u weyn ahaa oo xitaa hadaan nabinimo gaarsiisneen cadeynaya waxa ilaahay uu raaciyay in Allah astafa aadama wa nuuhan wa ala ibraahim wa ala cimraan saddex nabi ba la raaciyay aadam iyo nuux iyo ibraahim iyo cimraan marka kulligood ba ilaahay subhanahu wa ta'ala nabadgeliyo korkooda hayale cimraanna wuxuu awow u noqonaya xagga hooyo nabi ciise iyo nabi yaxya hadaynu nimaadno awowga xagga aabbo badan yahay مثلا waxa kamida awowga xagga aabbo nabi ibraahim wuxuu awow yahay nabi yaqoob sooma abu noqonay isxaaq oo kale nabi isxaaq oo kale nabi yuusuf muxuu noqonayaa yuusuf bin yaqoob soomahan yaqoobna yaa dhalay isxaaq ma dhalay marka isxaaqna wuxuu noqonayaa alayhi salaam nabi yuusuf uu noqonayaa awow aabbe shukran sheekh su'aasha sagaalaad waxa weeye laba nabi oo isdhalay هيا كواس وبدين ما شاء الله نبيذ إسرائيل وفربدين واحد كسر بلابنا هكا وصل رئيسة الدون كسر بلابنا النبي آدم مرة النبي آدم ده يسوي النبي يبوح على النبي بود على الشيث بلده يشرع عليه السلام نبي الشيث الدين توي شيثي مركا الشيث ابن آدم لا ولا سوى إسرائيل إن كستود النبي آدم وحدا وضع على هذا الشيث نبي بوها نبي شيث واحد كلاس النبي إبراهيم النبي إسماعيل نبي إبراهيم النبي إسحاق hadana waxa isdhalay nabi isxaaq iyo nabi yaqoob hadana waxa isdhalay nabi yaqoob iyo nabi yuusuf hadana waxa isdhalay nabi sulaymaan iyo nabi daawud baa sulaymaan dhalay hadana nabi zakariya iyo nabi yaxya iyaguna way isdhalaan hadana nabi ayuub iyo nabi dulkifli kuwaas oo isdhaw nabiyada isdhalay farabadnaan ma sha Allah su'aasha u dambaysa waxa weeye laba nabi oo isku abti ah laba nabi oo isku abtiya oo su'aal adag laakiin marka aynu ka duulno inantii uu dhalay nabi yaqoob nabi ayuub qabay yaqoob iyo dhalay nabi yuusuf uu dhalay marka inantaas uu nabi yaqoob uu dhalay yuusuf gabadhaas carruurta dhashada abti buu noqonay marka gabadha haddaan nidhaahno nabi yaqoob baa dhalay oo nabi ayuub baa qabay oo nabi dulkifli baa dhaleen dulkifli waxa abti u noqonaya maxay nabi yuusuf marka sidaa ka duulno weeyaan إلهي بان أبو حق جل جلاله شكرا